السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما ركزتي تيجي ديارات وأنت تجوزتي أد معلم سكتي أما أسبوع سكتي أما أنت دربت تكتي الساعة سكتي ديارات كلية. هتبرر دي بنادم هذين الجبادي دودن وطن مجال كل حمران ومرهم بعددي عشان أو أي دولان سيد ديارات وجا مرمان ويرمودي. ما كان يحلم به الإنسان لعشرات السنين تحول إلى حقيقة، وهو أن يحول السيارة إلى طيارة فيسير في البر ويطير مع الطائرات. الآن يمكن أن نقول بأن الخطوة قد تحققت في أول تجابدي يقول رسالة مريو قاريجن ديارة دا وكوجو ليست وحنا لو بحيي إيركار قاريجن سيدا عادية بعدك الديارة دا كلو يرير أيو لي هاي قاب جابادي دا عادية أنا وسمي سنيا وحيابك كلا لوجسي شعلنا قاريجن وحكمي وما بهنان سيد إيربوت سيد يقول سودكتو كلي مال بنانو بدايجن الساعة أو أنا عيد مرين كدي واسكا سوديسا شباب قاريجن waxa ka dhacay dalka Slovakia lagu magacaabo ee dhaxbartama Yurub dhaca waxaana qaadatay 35 daqiiqo waxaanu jaray gaarigan intaas 100 kilomitir markuu gaarigan xataa soo degayo uma baahnaan ee barashuud soo xawaari soo qaboojiye kaliya caadi buu soo degay isagoo adeegsanaya afartiisa taayir ee gaariga caadiga gaarigan oo kale oo marna baadidiyalna duulay marna baadidka xiranaya oo laamid caadi kula maraya filmaanta fiction ka ama khayaaliga un baa lagu daawan jiray laakiin maanta xaqiiqo ay noqotay gaarigan miisaana wuxuu qaadi karaa 200 kilogram sidoo kale wuxuu jari karaa saacadiiba 190 kilomitir waxaanu jooga sare kor u kici karaa ilaa 2499 mitir motorka gaarigan waxa nasiib u yeeshay inuu sameeyo shirkadda BMW lagu magacaabo Jarmalka laga leeyahay ninkan Slovakiga waa makaaniga gaarigan sameeyay waxaana lagu magacaabaa Steven Klay sawirkan idin muuqda waa 10 sano ka hor isagoo taagan gaarigiisa oo markaa tooy kaliya ah gabadhida raaciyeelku ku ciyaaraan oo kale waqtigaas riya kaliya ayuu hadlay laakiin maanta riyadiisa soo rumooday waxaanu ku guuleystay inuu soo fuulo oo isagu tijaabiyo Stephen Klay muddo 32 sano ka hor ayuu ka qancibay jaamacadda 1989 kii bahayd markaas ayuu ku fikiray inuu sameeyo gaarigan doolaya markii uu rayso xusamay gaari Ruskeera foolxun oo baadal laakiin mashruuciisa isla markiiba uu fashilmo gaarigu duuli waayo haddana mar kale uu soo laabtay sanadii 1996 waxaanu sameeyay gaari kale laakiin nasiib xumadiisa markana gaariga baadidka aadana wax ka sii noqdeen oo duuli waay mashruuciisaasna xagaas ay ku fashilmay laakiin Steven Klay markale ay 3 sano kadib aadana soo laabtay isagoo adeegsanay markan saaxiibkiyo isaguna makaaniga waxaana bilaabeen inay qorsheeyaan qaabka horgelin lahayn gaarigan in diyaarad ka dhigto waxay kugu qaadanaysaa 3 daqiiqo kaliya gaarigaaga wadada maray muddo 3 daqiiqo kaliya ay kugu qaansan baadid la soo baxo oo dhulka ka kaco marka laakiin mashruuci Steven Klay uu guuleystay gaariga tijaabadiisina sidoo kale way guuleysatay waxaana ku baxay lacag $1,700,000 lacagtan way badan tahay laakiin marka la eego mashruucu qabtay waa lacag aad u yar bini'aadamkana wax badan ayuu soo kordhisay tijaabadan guuleysatay kadib maalgashadayaasha caalamka dhan ayaa safaf soo galay shirkadina ka faa'iideystaan inta yar tahay oo si maalgashtaan run ahaantii Steven Klay waxyaabo badan ayaa laga baran karaa qofka haddii himadiisu sarreyso sidoo kale hadafkiisuna caddaado wax istaajin kara ma lahan in badan uu soo fashilmay laakiin ugu dambeyntii maanta waan aragnaa tijaabadiisaas mustaqbalkan ilaahay baa say noqon doonto gaarigan filmaanta fictionka ama khayaaligan ku daawan jirnay dhammaanteynba ismayna lahayn marnaba casri inaan joogno ayuu soo bixi doono midda labaad goorma dhulka Soomaaliya soo gaari doona tolo haddii la bilaabana gaarigan la iibgeeyo commentiga soo ugu fikirkaaga mawduucina labaad gamekan Fortnite lagu magacaabo oo ah qaabka PUBG oo kale hal mar inay adiga saaxiibada wada gashan wada ciyaari kartaan idinkoo kala meel jooga videogan maalmo dhaweyd buuq badan ayuu dhaliyay gamekan maalmo dhaweyd waxa lagu soo daray kacbado la duminayo oo dhibco badan laga helayo ama laacibiintu markay kacbado dumiyaan dhibco badan ay ka helayaan jaamacadda Azhar ay xataa ka hadashay laakiin horta sila aragno marka hore gamekan muxuu yahay gamekan waxa la soo saaray sanadii 2017 waxaana laga leeyahay dalka Mareykanka hadaba muuqaalkan idin muuqdo ayaa maalin dhaweyd faafay waxaanu muujinayaa laacibiinta gamekan ciyaaraysa oo inta xaramka galaan qaatana gudin ama wax lagu burburiyo kacbada kadib kacbada burburinay dhexdeedana hub kala soo baxay dhibco badan ku helaya hadaba jaamacadda Azhar ee dalka Masar kaliya ayaa ka hadashay arrintan waxaana dhalinyarada muslimiinta uga digtay in gamekan ciyaaraan maadaama caqiidadooda wax badan u dhimi doono hadaba social media aad ay ugu jirta videogan maalmahan oo dhan muslimiintuna aad bay uga cadisnaan waxaan ay Fortnite ku dhaqaaqday dhalinyarada muslimiinta qarnigan waa la amaana oo shalayto markii PUBG lagu soo daray sanam loo sujuudiyay si dhibco badan looga helo muslimiin badan ayaa iska dhiliiday PUBG heer shirkadii gaadhay in muslimiinta raali geliso sanamkiina meesha ka saarto shirkadana hadaba Fortnite-na wali kama hadal arrintan haddii ka hadlayna wuxuu ba noqon doonaa inay sidii Faransiiska oo kale ama shirkadda PUBG oo kale muslimiintuna cunaqabateen qabateen saaraan gamekan hadaad ciyaarto iska delete sababtoo waxaad ku ciyaaraysaa caqiidadaada iyo qiyamkaaga hadaad garanayso qof ciyaaro oo wali ogeyna muuqaalkan la wadaag ama u sheeg bayna iska deleedo si ugu noqoto xataa cunaqabateen shirkadda Fortnite
muuqaalkani maanta intaas uu nagu eegyahay fadlan haddaad nagu cusubtay subscribe saar noola socoto muuqaalada dambe. wassalaamu calaykum.